soo dhawaada khayaaray halkan markii aad daawato waxaa hubanti ah inaadan marnaba rumaysan doonin in dhacdadan ay ka dhacayso mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan ama dalalka ugu horumarsan caalamka. Daawo muuqaal si toos ah loo dhacayo mid ka mid ah dukaamada ku yaala dalka Ingiriiska. Adiga ayaa yaabi doona. Weliba kaaga si darane dhacdada qabsatay labadan tuugo ama labadan dhalinyarada ee doonaya dukaanka inay dhacaan waa mid aad u xanuun badan. Waxaad dareemi doontaa marxaladan oo kale qofka markii uu ku jiro weliba uu joogo dalka Ingiriiska waxaa sugayso keliya soo dhawaada khayaaray muuqaalku dhammaystiran ila daawada. Sida ka muuqata labadan dhalinyarada waxay gudaha u soo galeen dukaan local ah oo ku yaala magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska. Haddaba dukaanka waxaa ku xirnayd kamera CCTV waxaana joogay hal nin. Intooda badan waxay iibiyaan khamriga, sigaarka iyo waxyaabo yaryar oo cuntooyin ah. Waxaana inta badan iibsada waxaana gagata dhalinyarada iyo dadka deegaanka oo markaas u baahda siba weekendiyada ama habeenada sabtida iyo xadda markuu khamriga ka dhamaado ama waqti dambe dukaamada la xiro. Dukaamadan ayaa furan waxaana la yidhaha local shop ama dukaamada gudaha oo intooda badan qaarkood 24 saac furan, qaarkood ilaa ay saq dhexe ilaa ay 2 habeenimo gaaro ilaa ay 9 habeenimo kuwa ayaa gaaro. Balse muuqaalkan ayaa waxa uu ku tusinayaa sida ammaanka dalka Ingiriiska magaalooyinkiisu ay halis badan uga jirto. Waxaa laga yaabaa in magaalada ku nooshahay ama dalka Soomaaliya ama qaaradda Afrika waddan ka mid ah ama meel kastoo dunida ku nool inaad ka aaminto waxyaabaha aad ka aragto miidiyaha ama warbaahinta. Balse xaqiiqada dhabta ay jirto CCTV-ga muuqaalkan ayaad ku daawan doontaa oo aad ku arki doontaa. Nimankan dhalinyarada gudaha iyo soo kale dukaanka waxay wataan midi weyn ama baangad si qof buu yaqaano. Waxa ayna dhaqsi ah ugu qaylinayaan in ninka dukaanka jooga ama ninkii khasnajiga ku jiray uu lacag siiyo, lacagta soo bixiyo iyagoo erayo kulkulul iyo hanjabaad iyo hadadaad isugu daraya. Balse ninkii wuxuu ku hayaa oo ku celcelinayaa fadlan hay dilin inaan intaba rabo waxaa rabti qaado waxaa rabti waa ku siinaya iyo erayo kale oo markaasi ka wata khayaano iyo xeelad cajiib ah. Balse waxaa la yaabaa nimankii midida watay oo laba ahaa inay gudaha u soo galeen dukaankii weliba baangad ayagoo watay wax cabsi aan isku jirin. Waxay bilaabeen inay ninkii ku caalcaaliyaan oo baangadii madaxa aan kaaga jaraya calooshaan kaa gelinaya oo ku mudmudo oo taataabsiyo waabiyo ayuu isku dayaa. Laakiin ninka dukaanka wuxuu ahaa nin aad qabiir u ah wax badan fahansan. Wuxuu dareensanaa in dhalinyaradan inay wax dilaan inaysan u joogin meesha laakiin qorshoodu kaliya uu yahay inay wax dhacaan. Balse ugu dambeyn waxaa dhacay arrin aan la yaabi doonto cid rumaysan karta ma jirta. Geesinimada iyo weliba kartida iyo khayaanada iyo maskaxda uu isticmaalay ninkan ayaa waxa uu ku badbaadiyey hantidiisii iyo naftiisiiba. Dhalinyaradii waxay ka soo saareen meeshii maqalka ama meeshii tiilka ninkii waxayna soo wareejiyeen isagoo banaanku soo baxay. Balse shalfiska meesha alaabta saaran tahay geeskeeda ayuu ta galay ayuu 2 dhalo soo qaatay. mid ka mid ah ayuu 2 dhalo ku tuuray bacdina iridda u dhawada ayuu ka baxay albaabka ayuu iriddana ku qabtay ku celiyay ilaa heer wuxuu gaaray ay xataa isku dayaan inay barbariyaan oo ay tuugaan waa uu ka furi waayey. Waxa isku dayay inuu jiido albaabka laakiin way suurtoobi weyse. Ninka albaabka hayo waa nin aad u xoog badan isagana waa uu u babacdhigi waayey oo awoodiisa way sii weyse. Sheekada la yaabkaa waxay tahay in labadaa nin ay qorsho cajiib ah degeen isla markiiba. mid ka mid ah ayaa kii kale saaxiibkiisa soo qabtay koorsagaaroo ku qabtay midi ayuuna soo qaatay caloosha ayuuna ka saaraya waa dilaya ayuu leeyahay. haddaad iridiga furi weyse waa dilaya ninkan wuu dhimanayaa. marxaladaas marka la joogo haddaba waxaad ogaataa dalkan sharci ayuu leeyahay Ingiriiska. waxaa ka jirto haddii ninkaas uu midida ku mudo ninkaas dhinto ninka albaabka ku haya qayb ayuu ku leeyahay dembiga. haddii maysan dhicin ninkan mididii saaxiibkiis ayuu qoorta ka qabta wuxuu leeyahay waa dilayaa isagiina wuxuu ku hayaa hay dilin fadlan waa ku baryaa biliis ani qof shacab ahay ninkan uu dili rabaa iridiga fur iridda siidaa erayo kale oo calacala ayay ku hayeen. balse ugu dambeyntii ninkii dukaanlaha ah arrintaas way mari weyse waa u dhegeysan waaye waa uuna diiday. wax cajiib ah oo la yaabayaan waxay tahay
geesinimada iyo go'aanka cajiibka ninkan qaatay. ugu dambeyn waxa uu isku dayeen inay meeshii ka baxsadaan darbigii muraayadii albaabka ayuu baangad la dhacay muraayad adag ahayd oo double glass horena muraayada kaga taal gudaha banaankana muraayada kaga taal tan haddaa jabisid tan kale ayaa jabayso muraayadahaas dukaamada lagu dhisana muraayada aad u adag waaye oo safety loogu talagalay way jabi waayeen ugu dambeyn gacmihii ay taageen waa isdhibeen waxay yidhahdeen fadlan waxaan kaa codsanay inaad na sii daysid alaabtaada waa kuu dhignay na fasax laakiin maysa dhicin ugu dambeyn booliiskii ayaa meeshaas yimid sidaas ayaana lagu xiray oo waxay xabsi ku qaadan doonaan sanooyin badan oo lagu xukumi doono